iyadoo ay maanta ku beegnay 10 bisha Diseembar oo ah maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa komishiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa ku qabtay ciyaar lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha waxaana ciyaartaasi ka qayb qaadanayay laba kooxood oo ka kala socday dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim Sheekh Yuusuf Eegas Gacan Libaax agaasimaha guud ee komishiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland ayaa ka hadlay ciyaartan lagu xusayo maalinta xuquuqul insaanka oo soo agaasimay komishiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland maanta waxa weeye taariikhdu waa 10kii bishii 12aad 2021 oo ku beegan maalinta xuquuqda aadamaha dunida guud ahaan laga xuso maadaama ay ahayd maalin jimco ah oo ay tahay maalin cibaado waxaynu inagu xuskii xafladda aynu ku bedelay oo aynu berri u dhignay gelinka hore wacyigelintii kale maalinta sabtida aynu bedelay inaynu ku maxaa la yiraahdaa tartansiino ama wacyigelino mid ka mid ah dugsiyada sare ee dugsiga Gacan Libaax oo imika la yiraahdo Sheekh Ibrahim Sheekh Yuusuf oo Eegas Gacan Libaax waxaan aad ugu hambalyeynaa marka hore labada kooxood ama labada galaas ee soo bandhigay ciyaarta quruxda badan leh ee aadka u degan ee ka muuqdo xirfadu ay ka muuqato runtii aad baan ugu hambalyeynaa waxaan mar labaad u hambalyeynaa kooxda guuleysatay ama galaaska guuleystay oo runtii iyaguna aad u soo bandhigay ciyaar qurux badan ujeedadeedu waxay ahayd wacyigelin inaynu ku wacyigelino oo xasuusnaano oo aynu ku xusno maanta inay tahay maalintii xuquuqda aadamaha dunida laga xasayay ama la iska wacyigelinayay ee la isku baraarujinayay guud ahaan xuquuqaadka maaha markii koowaad ee iskuulkan aanu ka bixino wacyigelintan komishan ahaan waa iskuulan maamulkiisa iyo maamulka gobolka waxbarashadaba runtii uga mahadnaqayno wada shaqaynta fiican iyo wacyigelinta kala duwan ee mar walba joogtada ah aanu la leenahay aad baan u hambalyeynaa maamulka iskuulka iyo ardayda iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka gobolka waxbarashadaba wada shaqaynta fiican ay nala leeyihiin ma noqon doonto ciyaartii inuu iskuulkan dambeysay galaasyo kale ilaa aynu gaadhno in iskuulkiinu uu la safto maxaa la yiraahdaa ama uu la ciyaaro iskuulada kale maxaa la yiraahdaa ka badino haddii Ilaahay yiraahdo maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim Sheekh Yuusuf Eegas Gacan Libaax maamulay Yuusuf ayaa komishiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland uga mahadceliyay ciyaartan oo ku dhiirigeliyay ardayda dugsigaasi runtii agaasimaha aad baan ugu mahadcelinayaa ardayda ka soo qayb gashay galaaska 4C iyo 4D aad baan uga mahadcelinayaa runtii kubadda adag baa la soo bandhigay si adag bay u ciyaareen runtii galaaskii guuleystay waa 4C weeye aad baan ugu hambaleynayaa galaaska kale laga guuleystay waa 4D laakiin badiyaabo waa keenin weeye labada galaas waa isku mid weeye bariibu ka kalena badin hadii Ilaahay naftiinoo daayo runtii waxaan uga mahadnaqaynaa agaasimaha ayaan uga mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee uu noo soo casuumay runtii waa markii labaad ay noo soo bandhigaan hawshan iyada ah ugu dambeyntii agaasimaha guud ee komishiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland ayaa halkaasi koobkii ku gudoonsiiyay kooxdii ku guuleysatay tartankaasi oo qabtay komishiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland ee lagu xuseeyay maalinta xuquuqda aadamaha